shirkadda Google oo cabsi weyn ka qabto ChatGPT waxaana la filayaa in gebi ahaanba ay ka baxdo saaxadda teknoolajiyadda caalamka. Google says it's launching its own artificial intelligence-powered chatbot to rival ChatGPT. ChatGPT passed the US medical licensing exam, the bar exam, and got a B on a Wharton MBA paper. Asaasihii emailka ayaa sheegay in muddo 2 sano ah ChatGPT uu suuqa kaga saari doono shirkadda Google. 8 bisha hadda aan ku jirnay February shirkadda Google waxay qasaartay lacag dhan $100 bilyan halka shirkadda Microsoft oo xifaaltan adag kula jirta Google ay ayadana soo bandhigtay AI cusub oo lagu magacaabo Bing Chat waxayna sheegeen inuu ka awood badan yahay ChatGPT. waxaa socda dagaalka ugu adkaa abid ee teknoolajiyadda caalamka oo ay isku hayaan shirkadda Microsoft iyo OpenAI oo dhinac ah iyo shirkadda Google. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa dagaalka ay isku hayaan labada shirkadood ee aadka u waaweyn xagga teknoolajiyadda Google iyo Microsoft. haddaba waxaan sharxaynaa meesha ay Google ka soo bilaabatay iyo meesha ay maanta taagan tahay. So we're right between that house and this house. We're renting this half of a house. Ping pong table. meeshan aad u jeedaan waa Google. sanadkan waa 1998 waxa uu kiraysan laba qolo iska soo horjeedo xafiis u ah. labadan qol ee xafiiska u ah Google waxa iska leh gabadhan lagu magacaabo Susan waalidiinteeda. Susan waagaas waxay Google ka ahayd madaxa suuqgeynta, haddana waxay CEO ka tahay YouTube-ka. ninkan waxa lagu magacaabaa Larry Page, waa asaasihii shirkadda Google. waxa isla asaasay asaga iyo saaxiibkiis lagu magacaabo Sergey Brin. Google waxay sii horumarisay shaqadeeda maadaama waagaas dunida ay ka taagneyd baahi internetka ah, waxayna shaqaaleysiisay dhalinyarada PhD ka wadata cilmiga computer science-ka si shirkadda loo horumariyo shaqadeeda. maanta Google waa shirkadda ugu caansan xagga internetka, waxayna hogaaminaysaa oo ay number 1 u tahay internet surgeon ama qofka hadduu u baahdo in macluumaadka internetka wax ku baaro Google ayuu soo galayaa. waxayna ku hogaaminaysaa 90%. su'aalaha maalin walba Google la weydiiyo waxay gaarayaan 8 bilyan oo jeer maalinkii, taasoo ka dhigayso in shirkadda Google ay number 1 uga jirto xagga internet surging. dhaqaalaha ay shirkadda Google ku fadhido waa 1.15 trillion US dollar. haddaba shirkadda sidaan oo dhan magaceeda u weyn yahay intaasoo dhaqaale ah haysato kuna hogaaminayso internet surging-ka 90%. waa maxay cabsida ay ka qabto ChatGPT oo dhowr bilood kaliya hawada ku jiro? ChatGPT waxaa sameysay shirkadda lagu magacaabo OpenAI. waa artificial intelligence aad loo horumariyay oo kaaga jawaabayo su'aal alla su'aasha aad weydiiso. waxaa la soo bandhigay 3 November sanadka hadda aan soo dhaafnay 2022. asagoo 2 bilood oo kaliya hawada ku jira ayaa waxaa ku biirtay 100 milyan oo isticmaalayaal ah. waana abkii abid ugu horeeyay oo intaasoo isticmaalayaal ah ku helo muddo aad u kooban. TikTok waxay ku qaadatay in 100 milyan oo isticmaalayaal uu helo 9 bilood. Instagram asagana waxay ku qaadatay 30 bilood. They got to 100 million users in just a few months. That's faster than Instagram, faster than even TikTok. They are already changing the way we live. waqtiga la soo bandhigay ChatGPT waxay sheegeen inuu aad u horumarsan yahay, jawaabaha uu bixinayana 98% ee sax yihiin. su'aal ayaad weydiinaysaa isla markiiba jawaab faahfaahsan ayuu ku siinayaa. wuxuu awood u leeyahay inuu ka jawaabo su'aalo kala duwan oo iskugu jiro cilmiga juqraafiga, sayniska, xisaabaadka iyo wax walba oo ku saabsan macluumaadka dunida. haddaba isbarbardhigga su'aal weydiinta Google iyo ChatGPT aan u imaano. Google marka aad su'aal weydiiso wuxuu kuu soo bandhigayaa website kala duwan oo ka soo xigtay jawaabaha ee jawaabti toos kuuma siinayo, halka ChatGPT su'aasha aad weydiiso isla markiiba jawaabta u faahfaahsan uu ku siinayo. laakiin Google wuxuu soo xiganayaa website kala duwan sida Wikipedia. qofka su'aasha weydiinayana waqti aad u badan ayaa uga baxaya in Google uu isticmaalo, halka ChatGPT waqti aad u kooban uu ku helayo jawaabtii oo faahfaahsan. midaan ayaana sababtay in shirkadda Google aad u cabsato ogana cabsato ChatGPT maadaama muddo 2 bilood kaliya 100 milyan oo isticmaalayaal uu ku helay. haddaba maxaa iska galay Microsoft iyo ChatGPT? sidaan muuqaalka bilowgiisa ku soo sheegnay waxaan sheegnay in shirkadda Google ay cabsi weyn ka muujinayso ChatGPT iyo Microsoft. ChatGPT waxaa sameysay shirkadda OpenAI. shirkadda OpenAI waa shirkad loogu talagalay in lagu horumariyo laguna sameeyo artificial intelligence ama caqliga macmalka ah maadaama hadda teknoolajiyadii aad u sii horumarayso. shirkaddan waxaa la asaasay sanadka 2015 waxaana asaasay 6 ganacsato ah oo ka mid yahay Elon Musk. laakiin Elon Musk uu iskaga baxay 2018 sheerkiisa ayuu ka qaatay wuxuuna ku biiray dadka ka soo horjeedo artificial intelligence-ga wuxuuna sheegay in dunida ay halis ku yihiin. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot.
Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. 2019 Microsoft ayaa waxay investigareysatay shirkadda OpenAI waxayna ku investigareysatay lacag $1 bilyan ah isla sanadka hadda aan ku jirno 2023 bishii January waxay sheegeen Microsoft inay dib u investigaraynayaan shirkadda OpenAI waxayna ku qarash gareynayaan lacag $10 bilyan ah hadday heshiiskan shirkadda OpenAI aqbasho 75% faa'iidada ay sameeyaan waxa iska leh Microsoft macnaha shirkadda OpenAI waxay hoos tagaysaa Microsoft shirkadda Microsoftna waa shirkad aad u weyn oo xifaaltan adag kula jirta Google waxay gabi ahaan la wareegeen shirkadda OpenAI oo ku caansan sameynta artificial intelligence-ga haddana ChatGPT oo OpenAI wuxuu hoos imaadaa shirkadda Microsoft dhaqaalaha shirkadda Google ee soo xareyso 60% waxay ku tiirsan yihiin su'aalaha la weydiiyo sidoo kale waxay lacag ka sameeyaan xayeysiinta ama Google AdSense iyo website-yada kala duwan ee sameysanayaan kambaniyada haddii dadka isticmaalayaasha ah ChatGPT ay u bataan Google dhaqaalaheeda hoos ayuu soo dhacayaa oo 60% dhaqaalaha ay ka helayaan su'aal weydiinta waa illumaysaa And there's a good reason for that. ChatGPT is potentially an existential threat to Google's business because Google relies 60% of its revenue on search, and ChatGPT offers an alternative to search, which is a one-stop question answering shop powered by AI. But this could change the game of search entirely, which is core to Google's business. suuq xumo aad u weyn ayaa soo food saartay shirkadda Google 12,000 oo shaqaalahooda ay shaqada ka fadhiisiyeen maadaama sida shirkadda u shaqayn jirtay hadda wax badan iska bedeleen sababtoo ah tiknoolajiyadda ayaa isbedeshay Google waxay caawinaad degdeg ah weydiisteen labada nin ee aasaasay shirkadda Google ee lagu kala magacaabay Larry Page iyo Sergey Brin laakiin nasiib xumo 2019 labadan nin shirkadda gabi ahaan buu iskaga tageen ninkan Larry Page wuxuu investigareysanayaa shirkadda samaysa flying-ka ama gaariyaasha sida diyaaradda u duulaya ee baalasha leh oo mustaqbalka bedeli doono gaariyaasha hadda caadiga ee aan wadano asaga uma usan soo jawaabin meeshaas ayuu xooga saaraya laakiin shirkadda Google waxa u soo jawaabay Sergey Brin asaga ayaa u imaaday si uu dagaalka kala qayb qaato 8 bisha hadda aan ku jirnay February shirkadda Google waxay soo bandhigtay artificial intelligence cusub oo lagu magacaabo Bard si ay uga tartamaan ChatGPT laakiin waqtiga imtixaanka la marinayay ayaa waxa la weydiiyay su'aalo si khaldan ayuu uga jawaabay su'aalaha shirkadda Google waxay qasaartay lacag $100 bilyan In the ad, Bard is given the prompt, quote, "What new discoveries from the James Webb Space Telescope can I tell my 9-year-old about?" Bard responds with a number of answers, including one suggesting the JWST was used to take the very first pictures of a planet outside the Earth's solar system or exoplanets. This is inaccurate. The error was spotted hours before Google hosted a launch event for Bard in Paris, where a Google senior executive touted Bard as the future of the company. Shares of Google parent Alphabet were down more than 7% in early trading Wednesday, outpacing declines in the broader S&P 500. isla maalintii ku xigtay shirkadda Microsoft ayadan waxay soo bandhigeen chat cusub oo lagu magacaabo Bing Chat waxayna sheegeen inuu ka caqli badan yahay ka awood badan yahay kana horumarsan yahay ChatGPT qaabka u shaqeeya waxay ku sheegeen in si toos ah aad ula sheekaysanayso sidoo kale su'aalo aad weydiinayso uu kaaga jawaabayo sidoo kale waxay sheegeen dadka depression-ka qaba ama stress-ka qaba inuu daawo u yahay sababtoo ah waxay sheegeen in talooyin uu ku siinayo ama uu kula dhaqmayo sida in aad joogto dhakhtar psychiatric ah haddii aad isku buuqsan tahay ama aad u baahan tahay in talo lagu siiyo abkan ayaad isticmaalaysaa qaabab badan ayuu u shaqeeyaa ayay sheegeen Bing Chat abkan cusub ee soo saareen shirkadda Microsoft So let me introduce you to the new Bing homepage. You're going to notice some subtle but important changes. First, we have an expanded search box capable of accepting up to 1,000 characters because now Bing works with natural language. And you saw a little hint to chat, which I'm going to get back to in a second. meesha dagaal aad u adag ayaa ka socdo intaas kuma ekay ayadana waxaa dhacday koox injineero ah ayaa waxay ka goosteen shirkadda OpenAI gooni u goosad ayay noqdeen waxayna aasaaseen shirkad ay ayaga gooni u leeyihiin oo lagu magacaabo Anthropic AI waxayna soo bandhigeen AI cusub oo sida ChatGPT u shaqeynaya oo lagu magacaabo asagana Cloud injineeradan gooni u goosadka ah shirkadooda waxay isla markiiba madaxa gelisay $1 bilyan shirkadda Google ayaa ayadana ka faa'iideysatay jaaniskan waxay ku investigareysatay shirkaddan cusub lacag $300 milyan ah oo lacag aad u badan iskamayna gelin sababtoo ah waxa ay qiimeynaysaa injineeradan iyo shirkadooda inta uu vision-kooda la eg yahay hadday sii horumariyaan shirkadooda iyo artificial intelligence-gan waxaa la filayaa in shirkadda Google ay lacag aad u badan gelin doonto si ay u investigareysato shirkaddan cusub sida Microsoft ay ku sameysay OpenAI
shirkad magaceedu aad u weyn yahay oo dhaqaale badan haysato oo hal mar hawada ka baxdo dunida kuma cusbo oo shirkadii aan wada naqaanay ee Nokia oo taleefanada sameyn jirtay ayaa hal mar hawada ka baxday waxaana ka saaray shirkadda Apple iyo Samsung Nokia way isdhigteen oo isma isan dheheenin shirkado cusub ayaa hal mar hawada ka saari doono laakiin teknoolajiyada ayaa waxay ku socotaa speed sanad ka hor lama ogeyn in ChatGPT uu soo bixi doono bedeli doonana teknoolajiyada caalamka haddana waa ka cabsida galiyay shirkadda aad u baaxadda weyn ee Google shirkaddan Google kama cabsanaysa waxa hadda dhacayo oo wali ayada ayaa ku hogaaminayso internet saajin 90% ee waxa ay ka baqaysaa waxa dhici doona mustaqbalka iyo in magaceeda la aaso sida ku dhacday shirkadda Nokia haddaba adiga ma kula tahay in shirkadda Google ay hawada ka bixi doonto magaceedana uu meeshaas ku soo dhamaan doono muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagala socoto qaybta YouTube-ka soo dhawow sidoo kale haddii aad nagala socoto qaybta Facebook-gana soo dhawow waqtigaagana waad ku mahadsan tahay